laas caanood 300 kun oo qof baa ku nool waad garan kartaa magaalada 300 kun ku nooshahay halkani waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaaladu waxay sameysay horumar xooggan oo dhinacyo badan leh sanadihii u dambeeyay waxaana dadka magaaladu ay sameeyeen isku tashi si guul ay uga gaadhaan filashadooda fog marka dhexmarta magaalada waxaad arkaysaa in durba wax badan ay isbedeleen marka loo eego xilliyaan sidaasi u sii fogay waxaana taasi ay keentay inay soo jiidato dadka qurbaha ku nool isla markaasina ay ku sameeyaan maalgashi dhinacyo kala duwan leh taasoo kor u qaaday isbedelka xawliga ku socday magaalada Laascaanood barnaamijkani oo nu ku eegayno horumarka Laascaanood dad badan oo aanu la kulanay ayaa ka marakacay horumarka la taaban karo ee magaalada ka muuqda iyo mashaariicda maalgelinta oo ku soo badanaya magaalada horumarka gaarnay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii iyo colaadihii iyo wixii dib u rideeyay deegaanka waxaanu qaadanay inaanu horumar iyo ku tallaabsano nabadgelyo in ay ku timi siyaabo kala duwan oo ay kasbadeen dadka ku nool gobolka Sool waxa uu qaato horta bisayl baa ku dhacay oo dadkan bisayl ku dhacay waxa weeyaan in ay horumarka cidna ay soo gelin karaan laakiin ay gacanta ku haystaan bisayl noocaas ku dhacay oo ayna fahmeen in dadka gobolka deganu aan cidna u maqnayn cidna u qodnayn laakiin iyagu gacantooda waxay ku qabsadaan iyo wixii kale loogu damarkay qaban karaan laakiin inaan la isfiidin garaynayn oo aan la oranayn waxaasan idin wadnaa hooyo qabsada waxa kale oo bilicda ka qayb qaatay gurba jooga saafa caalamka ku nool oo qaar badan oo kamid ay wax fahmeen wacigii ay fahmeen oo ciidooda ay soo aamineen hodeelo qurux badan iyo mashaariic qurux badanna ay ka sameysteen inta hadayna waxaan leeyahay saaxiibadeyna hore ku daydo soo raaca wax badan baa soo bedelay marxalado kastoo adag baan soo maray subaxa saaka subaxa ka nabadgelyo badan tahay oo ka horumar wacan tahay ma jiro waxyaalaha kale ka soo naxay maalgashi baa ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maalgashigaas waxaa keensanaya sida hadda halkan joogno kale iminka hotel casuuran joognaa waxaa dhistay dad qurba jooga oo dhashay gobolka Sool macnaheedu wuxuu ku yimid markii la arkay dhaqdhaqaaqa gobolka ganacsiyada ka soconaya waxaa yimi maalgashi waxaa lagu soo kordhiyay ganacsiyo kala duwan shirkado cusub hadda yimi waxaan rajaynaynaa in ay saas u taaganeen laakiin horumarka gobolkuna si wacan u sii farbato qurba joogta ayaa la wada qiray in kaalinta ugu weyn ay ka qaateen horumarka iyo bilic wanaagga magaalada inkastoo ay jiraan dad aan qurba joog ahayn oo sameeyay mashaariic horumarineed oo wax badanna ka bedelay bilicda magaalada iyo shaqo abuurkaba dhanka dhismayaasha oo si xooggan ku socda ayaa waxay ka mid yihiin arrimaha muujiya horu socodka magaalada iyadoo aad arkayso marka magaalada dhex marto dhismayaal qurux badan oo lagu tartamayo shirkadaha mashaariicda ugu xooggan ka fulinaya magaalada waxa kamid ah shirkadda Fenon Construction taasoo magaalada ka fulisay dhismayaal badan oo dadka reer Laascaanood ay u bixiyeen mataanaha oo boqolaal gaadhaya kuwaasoo badankooda ay dhisanayaan dad qurba jooga oo dalka dib ugu soo noqonaya si ay u fuliyaan mashaariic kala duwan oo shaqo abuurna u samayn kara dad badan waxaanu tagnay goobo badan oo dhismooyin ay ka socdaan kuwa dhamaaday iyo kuwa imika gacanta lagu hayo guryahan waxaa dhisaysa shirkadda la yiraahdo Fenon Construction Company waa shirkad ka shaqeysa magaalada Laascaanood siiba gobolka Sool iyo magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Boosaaso Garowe Muqdisho marka guryahan aad arkaysid waa guryo hadda gacanta lagu hayo oo la wado kuwii horena waad aragtay ee dhamaaday ee aan dadka aan ku wareejinay projectyo fara badan shirkadu waa ka wada gobolka waxaa ka mid ah Amal Bank oo iyadoo hadda la wado oo la jeexay oo aad soo aragtay masaajid
Cali Barre oo la dhisayo marka waxa weeye shirkadani waa shirkad guryo badan dhiibtay magaalada gobolka ka dhiibto aad iyo aad u qurux badan marka waxaan rajaynaynaa shacabku gobolka Sool inay shirkadda Fanuun Construction Company ay guryaha u dhisto mustaqbalka fog iyo midka dhowba. halkani waa dhul jeexa dhismo xarumo ganacsi oo shirkadda Amal Bank ay ka wado magaalada Laascaanood isla markaasina waxa wada isla shirkadda Fanuun Construction waxaanu kula kulannay dhalinyaro injineera oo ah dad aad u firfircoon isla markaana fursado fiican oo shaqo ka helay mashaariicda ka socda magaalada. projectigan waa gurigii Amal Plaza waxaana fulinaysa insha Allah dhismihiisa shirkadda Fanuun Construction Company. projectigan wuxuu ka koobnaan doonaa dukaamo iyo xafiiska Amal insha Allah gobolka Sool. wuxuu ka koobnaan doonaa waa mool ganacsi oo kala duwan ilaa 48 guri oo ganacsi uu ka koobnaan doonaa oo carwooyin kale wax walba leh insha Allah wuxuu noqon doonaa mashruucii ugu weynaa ee ganacsi ee lagu fulin doono waana guri fiican oo dhismihiisa iyo shaqadiisa iyo wax walba aan soo bandhigi doono haddii Ilaahay idmo. waxaan leeyahay qurba jooga Washington ma lihid London ma lihid Bonn ma lihid Rome ma lihid Paris ma lihid waxaad leedahay Laascaanood marka qurba joogow magaaladaada ku soo biir horumarka nagala qayb qaado inta qurba jooga hadda nagu soo biirtay magaalada horumarka ka geystayna waan u mahadnaqayaa inta hadhana waxaan leeyahay magaalada ka buuxsamay